وقيبتي لبعض سلسلة قرني قبل يوحي شوطكي الكبات كحرت وانا جواب تحوليد وحقا يجيك دقال حيرة إيا حرب عروس كسوقالي رجعنا كيس حوذي هردي حجاد حاجدنا وعي تاي دول كاد حال كيسين دوغينا حيرتين مع حرق لصوها أما حين الله سارتا جيد كي إعلان كحاضري وقبلها أوير إيه دول كسوقالي رجع حلا بلال كأن حسابتنا iyo jigjiga oo burca ku eedeysay inay xaalufisay dirtii qoyanay iyo tii yaabiska ahayd waana kees culus oo aan looga hadhay heystan oo ka duwan qaybtii aynu soo marnay iyo dhammaan qaybaha soo socdaba sababtuna waxay tahay abwaanka heysta curiye iyo fanaanada ku luqaynaysaba waxay ka soo kala jeedaan awaar iyo dhagaxbuur waxayna tunka ku wataan 11 gobol ee Somali State iyo magaalada Soomaaliyeed ee Dirdhaba isla markaana matalaya caasimada jigjiga meeshana kama marna dagaal culus oo u dhaxeeya burco iyo dhagaxbuur oo ka siman ilka casaanta balse ku kala aragti duwan xaalufinta dhirta heystan oo la magac baxday ragga xila bilaal ayaa waxay jawaab u tahay heysti koowaad ee ku luqeeyay hobolkii weynaa Faysal Xawaas eriyada waa abwaankii weynaa ee jigjiga Cabdullaahi Xawayaan oo ahaa abwaankii silsiladii hore gaarsiiyay shanta Soomaali isla markaana Soomaalinimadu ku weyntahay ayaa wuxuu gurada kaga dhacay abwaankii reer burco oo ay berigii hore isku garab hayeen haddana ay labada gees ka soo kala jeesadeen iyagoo giigta isku haya abwaan Xawayaan oo inta badan murtidiisa ka ilaaliya galdaloolada si aan loogu soo gaban ayaa ugu horeyntii meel halis ka abaaray abwaankii reer burco ee silsilada furay wuxuuna yiri haweenka xariirta ee diinta xeerinaya xogta guriga dhowree xanaaneeya ubadka nafta xiisa galiyaad idinkoon xisaabtamin marisaan xajima abwaan Xawayaan aan wali ka tanaasulin qadiyadiisi oo muddada dheer u soo halgamayay difaacidda hablaha qaybtiisan koowaad ku qodbay hal xidhaale u baahan in badan maskaxda la tuujiyo wuxuuna yiri hadaa tahay nin xeel dheer hal xidhaale furi kara waxa quraan xaqiijo xadiisana cadeeyeen oon xoolahaagiyo xigtadaadu bixin karin xilligii la joogana dadku ay u xiisaan xaaraana nooshe codka sida xaragada leh ee xariirta loo qaaday waa xidigta caan baxday Hani UK xidigtan ku abtirsata hooyga hidiya dhaqanka Soomaaliyeed ee caasimada jigjiga ayaa waxay gacanta isaga dhigtay gulufkii gardarada ahaa ee toddobaadkii tagay gabdhaha lagu soo qaaday xidigtan xambaarsan magaca boqortooyada Ingiriiska hadda koorna boqorada dalka kula caweysay aqalka boqortooyada ee Buckingham Palace ayaa waxay baaba ka dhigtay hobolkii reer qarno silsilada bilaab Faysal Xawaas waxayna beenisay dhammaan eedaymihii uu la soo shirtagay ee ahaa xigiyo galoolkii xarga soohidii xinihiya garayskii xidhashada hugin iyo wax la mid ah hoboladan fankeedu hirgelay kuna soo caan baxday naaxiyada ustaadka xararkiisu silsiladu ku socdo ayay waxay cadaymo hor dhigtay Faysal Xawaas oo xawaliyada ku soo qaaday dagaal una xog badan ka hayn waxayna tiri xagarkii galoolkii xabagtii cadaad xirkii miruhu buuxeen quraxidadiisii xulad bay idin galiseen waana xaajo ugu xagee meedhax laga day hani oo ku haysaysa afka hablaha ayaa mar kale tiri iyadoo ragga ku tilmaantay inay yihiin duul aan habeen iyo maalin u kala socnayn xilliyada la seexday shimbiruhu xaroodaan ragga xeel taraafay xawaleed waligood xil kasbay ahaayeen laxanka waa macalinka silsilada ustaad Jinni Shume musiga mucjisada leh ee qaabka masriixiysan loo dhigayna hay'is dheeraad uma baahne waa maestro sheego bishaar jimcaha dambe waxa weerar laga filayaa dhanka iyo hargeysa oo burco naf biday waa soo saaraha silsilada cabdi askari jiib oo idin kala dhaxbaxaya idinkiyo quruxdii fanka Hani UK حلو بلالك حلك
حياء